أنسيد وركن أنسيد دين أيه وحن ما أنت وقبنا يا شليته حسبك كل مية وحكسه قاعدي جودية أوروردا يحسبيه ده وسما يسن قرالة وساقرن حسبك كل مية كاسو أي شيئين قرالة دي هرية قان كهرة أن حسبك كسو سعري أو أن أنيجو قدومية حسبك كسو سعري إني محن كل هذا أهرم كسو تشيديا وحا إسلام أنت أن شير شرعيت كقبتي قدوميه هرة حسبك مدحويني هرة حسبك كل مية لقد دورتي مدحوين موسى بيح مدحوين موسى وكوهم بليي قدقة قرار كاس أي قدقة صوص صارتي إسلام مرهانت أنا قدقة كنت غيري إن حسبك كل مية شروع ده أما حسبك لي هاي أما كوا قدقة سي حسابتها يكون معمولان إن حسبك كل مية وبالمر سيحي مركا وقوه الرئيسة حسبك كل مية وحسبك ما أنت وجود داوين أحزاب تقرنك وحسبي لا أوران كراي عدنا أنا دفيري كراينين إنه دتكي حلقي أنا أروحنا نشرين حسبي نشرين إذا قلنا دلك كشرت مركا أي حيد أوركي أسنم يدتكي حلكسك أخا محانكو ده هدايي waayeelka ahaa iyo waxgaradka ahaa iyo guurtiyadii iyo aqoonyahankii iyo culimadii dalka ay sukeenkiisa iyo dhidibada u soo asaasay in dadka maanta kulmiye ka tirsan iyo Allah raxmo intii geeriyootay ay dhidibada u soo saareen wax xusbi la hubo cid walibana ka marqaati firayso waa aragnimada siyaasiga ee uu leeyahay inaan xusbiyada kala lahayn وحسب اللحظة إنه محنكو ده هداية الديمقراطية دي يهرجلنت النظام كي الدولة نمو الشرعية دي قرنك وحلا هذا الله عن أوردر وهو كان سنتي سيوسجوا بديهني وحسب الله بس مدحوينا لقد دورتي وحسب أفريقيا تمن سنة دود سو هي ثلاثة ضلك أو حسب الحاكم سواحنا أنت ما أنت شرطة حسبك كل مية أنا أقول ما أنت قدوميه ساعة ودلك أفرتي قفي وجوه الرئي هلقا كبلعبه كمدعة كان النولعة سومالي لان سبيه النماء أن حلبة هينين مددر كسو تشوغي انتي إمك حسبك كل مية وهيي أو قولا نحل هيي إنان أنيقا يددك حسبك هو يا أرقا اللوغا بقينين إني ترشيرا هسه هاتي هذا الله ما أنت صباحي وحن نصيب درها جوان كمان أنت أي صوص عرتي شليت أي نوكنتي وبشو لحية لبعتنا هيد شن عشان أما وي كدوات كهر راديو يرى موسى أجياله أيا الشاقي إن لسوء علينا يو قرالك حسبك كل مية ما أنتنا قدوميه هري حسبك أيا وركيس معديس أي تغي إن حسبك قانك يقولون وبال مرسية هاي حيرك قدي دونا أي تغي شرعي وضد الشرعي قاعد نقصوا علينا ورت قدي دو حنقوم هاد نقيا إن قدي دو شاكتي وأنك نو شاكتي إدي قرار كان له وجيد راديو كموسنا شاقي isaga laftiisuna sheegay inay ka mid tahay hasaahate waxa doonaya maanta halkan inaan ka cadeeyo xisbiga kulmiye 14 sanadood buu xisbul xaakim ah Muuse 12 sano ku dhawaad buu gudoomiye ah waa gudoomiyihii ugu muddada dheeraa xisbiga kulmiye soo maray xilligii lagu wareejiyay xilligii ahaydna isna wuu garanaya anna waan garanaya dadka xisbiga joogaana wuu wada garanaya khilaafkii keenay iyo wixii keenayna isna wuu garanaya anna waan garanaya waqtigeedan anna ka hadlaya
iyo dad badan oo xisbigii hase ahaatee muddada imika sanadka ah bishala ee kulmiye xilkii wareejiyay ee madaxweynuhu xilkii uu markaa xisbiga kulmiye doorashadii laga helay uu ku wareejiyay madaxweynaha maanta xilka haya xisbiga kulmiye xilka uu hayay wadatashiga uu caanka ku yahay gudiyadiisa fulinta ee uu maxaan ku dhacdayay uu leeyahay hoggaanka xisbiga isaga oo muuse uu yahay guddoomiyihii xilka wareejiyay madaxweynihii xisbiga laga doortay aynaanu maalin qudh ah saacad qudh ah daqiiqad qudh ah golayaasha sharci ee dalka uu leeyahay maalin aanu fadhiisan maalin aanu taladiisa ka dhiibanin bilcagase ay mar walba ku jirtay shirar aanu isagu xaq u lahayn oo liiskooda iyo tiradooda la hayo inuu maxaanku idhaahdayey gurigiisa isagu ku shirayay gurigiisuna ma aha meesha xisbiga laga maamulo guriga meesha laga maamulo waa xarunta xisbiga waxaa caddaana inuu isagu hayay oo soo bandhigayay cid uu doonayay inay xisbiga kulmiye guddoomiye ka noqoto sharciga uu u leeyahay iyo meesha uu marinayo isagaa yaqaana arrintaasi waxa ay ku eg tahay maanta shirarka xisbiga hadday ururku ka hadlayo iyo haddii uu isagu ka hadlayo oo intii aanu arrimahan wadnay dareemo fara badan iyo diidmo fara badan isagu uu ka waday ayaa waxa maxaanku idhaahdayey ay arrintu ku soo baxaysaa inuu maanta isaga laftiisa uu ka hadlayo muddaynta shirkii xisbiga kulmiye ee shirweynihii xisbiga ee muddayntiisa aanu samaynay ee guddi fulin ay soo martay ee anigu aan guddoomiyey cidda maanta wax laga weydiinayaa muuse biixi maaha cidda wax laga weydiinayaa waa aniga cidda go-aanka lehina waa aniga sidaana waxaa odhanaya xeerka xisbiga kulmiye u yaala ee uu shalata isagu guddoomiyaha ku ahaa ee aniga iyo inta kale ee rag leh ee habla leh ee ilaa aasaaskii kulmiye mujaahidkii mudanihii madaxweynihii halgamaagii weynaaye axmed sinaaye ee xisbigan aasaasay ay kula soo shaqaynayeen ayuu maantana xisbiga kulmiye ku shaqaynaya nasiib daro raggaas maanta hoggaanka ku jira ee guddiga fulinta ku jira hablaha ku jira ee dhammaan gobolada dalka wada jooga waa intii kulmiye ee laga bilaabo anigu aan sidii kula soo shaqaynaynay haddaanu isagu maanta aniga iyo xisbiga kale midna kula soo shaqaynaynin xeerar buu xisbigu leeyahay arrintaa maxaanku idhahdaa ayay dabar u noqon karta anigana ay noqon kartaa isagana u noqon karta arrintu marka ay sidaa tahay xisbigan laba meelood loogama taliyo xisbigan laba qof uma kala taliyaan xisbigani wuxuu leeyahay guddoomiye keliya guddoomiyuhuna waa aniga xisbigu wuxuu leeyahay hoggaan keliya hoggaankiisuna waxa weeye waa guddoomiye ku-xigeenka koowaad iyo ka labaad iyo ka saddexaad iyo afraad iyo xisbiyaha guud xisbigu wuxuu leeyahay guddi fulineed intaasi waxay ku shaqeeyaan xeerka iyo sharciga shalaytana muuse uu ku maamulayay maantana anigu aan ku maamulayo haddii isagu maanta aanu ahayn anigana igulama maamulayo inta kalena kulama maamulayo aniga iyo ragga kale iyo hablaha kale xisbiga jooga waxaanu haynaa waxa weeye waa ixtiraam iyo xeerka xisbiga inuu siinayo inuu guddiga golaha dhexena ka mid yahay guddiga fulintana ka mid yahay haddii intaa laysla dhaafo waxa ay noqonaysaa xeerka xisbiga waxa uu qorayo
cidda maamulaysa ayaa maamulaysa ciddaasaana go-aamo ka gaadhaysa arrinta guddiga saddexda xusbiba qoraal bay usoo qoreen marka ugu horeysa qaranka Somaliland waxa ugub ku ah siyaasadda adduunkana waxa ugub ku ah xeerarka adduunyada lagu maamulana waxa ugub ku ah guddi teena oo kala ah oo markay warqad qoraysa warqad u wada qorta gudoomiyaha xisbiga hoggaanka xisbiga golaha dhexe xisbiga iyo xubnaha xisbiga marka milyan iyo googa qof ee diiwaanka shan ee Somaliland ayaa maanta warqadooda hore ay ku wada socotaa tuumos ixtiraamayo ee ka hadlayana waa taa maanta iyaga la hadli mayno xeer baa noo dhaxeeya xeer baa xisbiyadu leeyihiin dastuur baa qaranku leeyahay hay'ado qaran oo xeerarkan iyo sharciyada dalka qaabilsan baa jira dawlad dalka ka dhisan baa jira taasaanu ku xisaabtamaynaa taasaanu ka wada hadlaynaa laakiin arrinta aanu ka hadlaynaa waxa weeye haddaan aniga ahay oo gudoomiyaha xisbiga iyo haddii hoggaanka xisbiga aan talada wada hayna ay tahay iyo haddii guddiga fulinka tahay xisbiga kulmiye meel la kama darjeedin meel la maxaan ku idhaahdayay kagama khaldamin sharciyada dalka ka jirta dadka xisbiga maamula waa dad ka fac weyn waa dad ka waaya aragsan waa dad aqoon-yahan badan ah waa dad waaya aragnimo siyaasiya leh ilaa 2002 intii axsaabta siyaasiga ururada siyaasiga la furay axsaabta siyaasiga ay soo baxeen waa dad waaya arag oo aqoon-yahan oo ilaa muddada ka soo shaqeynaya hawlaha siyaasiga waa mid anugu aan kuwaas ka mid ahay xisbigu markaa waxaanu leenahay oo arrintan ku gabagabeynaya lagama maarmaan waxa ah xisbiga halka muuse ka leeyahay xisbigu ha u hoggaansanaado xisbigu uu u hoggaansamaayay malaakiisaska adiga taariikh soo jireenka ahee hore u soo jiray cidda isqabsadeen adiga u badnaaye adigu u hoggaansan nidaamka sharciga xeerka dhismaha iyo mas'uuliyadka maxaan ku dhahday xisbiga u hoggaansan baan ku leeyahay saaxiib u hoggaansan dadkani waa dadkii kula soo shaqeeyay haddii aanad la shaqaynaynin ka yeelo taxafud aanad la shaqayninoo haddaanad la shaqaynaynin aada wax ku yeesho wixii intaa ka badan hadalkeedana waa la gelayaa xisaabtankeedana waa la gelayaa midhaninaan cunina ma qabtaan ama adigaa khaladka yeelanaya ama annagaa khaladka yeelanayna waxaan aada iyo aada ugu faraxsanahay iyadoo intii lasoo joogayba arrintani ay socotay iyadoo xisbiga kala furkiisa cidda ugu badan ee lahayd ay adiga tahay ciddii kala qaybinaysa ay adiga tahay ciddii musharaxiinta u kala sameynaysa ay adiga tahay inaad maanta ka hadasho aad iyo aad baan ugu faraxsanahay hadalku adiga qudha ku taagnaan maaye xisbiga dhexdiisana wuu taagnaanayaa waana laga soo wada hadlayaa arrintanina xisbiga dhexdiisay gelaysaa dadka kulmiye waxaan ugu baaqayaa xisbiga kulmiye in midnimadiisa aynu ilaalino xisbiga kulmiye hadallada la doonayo in lagu kala qaybiyo inaan dhigna loo taagin xisbiga kulmiye inaynu ilaalino xisbinimadiisa iyo jiritaankiisa guddidana waxba ha ku dheg taagina inta imika maanta ka socotee mas-uuliyadda waxaa qaadanaya la xisaabtankooda guddiga fulinta ee xisbiga iyo hoggaanka xisbiga waxaan aada iyo aada uga xumahay saaxiibkay muuse inay hadalkiisa maanta ku jirto dhalinyaro xisbiga kulmiye ah ayaa guddoomiyaha iyo ragga xisbiga maanta ayaa waalaya waa marka ugu horeyse horta xisbiga kulmiye asal ahaantiisa taariikhda dadweynuhuna way la qiri doonaan laguma hayo dhalinyaro hablo iyo inama ah oo asluubaadkooda iyo akhlaaqiyaadkoodu ay lagu sifayn karo dadka waala dadka uu muuse u jeedaa maxubnaha xisbiga milgaha lehe maamuuska lehe baarlamaanka ku jiraba